Walaalayaal talada markaan ku soo noqono nimiday 15 May waa tashanay waxaan go'aansanay mushaakilaadka Soomaaliya la waa badan yihiin hadii la tiximaaga waa wax aad iyo aad u tiro badan labay u qaybsamaan mushkiladahaas kuwa hadii aad xalliso oo xoog iyo aqli iyo xoolo geliso ayaga ka xallismay markay ugu fiicnaadaan ayaga ka xalismay hal mushkilada yaa meel ka kortay mid labaad ku xiji mid saddexaad ku xiji liiska dheer daba kac waay qaar waa noocaas waxa jiro qaybta labaad oo mushkilada oo ah hadaad xaliso mid kuwa badan oo kale ayaa xalismaya adoon adiguba aan xalin midda aad xalida awgeed ayaa kuwa badan oo kale ay u xalismayaan annagu waxaan door bidnay marka inaan isku mashquulino kuwa hadii aan xalino mushkiladaha badan oo kale hareerayaal ay xalismayaan oo ay ugu horeyso amniga xoreynta dalka waad garanaysaan dadka Soomaaliyeed in ku dhow 70% waxay ku nool yihiin miyiga waayihii la soo dhaafana miyigeenu sidoo ahaa waad garanaysaan cidda joogta iyo cidda ka talinaysa marka inaan dadka aan ka dul qaadno wahmiga iyo cajiska iyo xumaanta khayr Allah siiyo sheekheena oo maanta halkan uga hadlay sifaadka dadkan haysta 15 sano la soo dhaafay ajar iyo xasanaad alla soo koobay Allah ka siiye sheekha maanta ma soo qaaday sifaadka ay leeyihiin waxa ka soo rooba waxay hore u soo sameeyeen jireen wax cusub maaha oo maanta curata maaha waa xaajo curata maaha waa xaajo la yaqaan oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa intay noolaayeen dadka muslimiinta soo maray waa imtixaanaadka maxaa ahayd ummadaha muslimiinta haysta ay ka mid yihiin waxa ka soo raaba waad aragteen dadka ay dilayaan waad aragteen taariikhda siirada laga soo sheekay waad ogeed haddana waad aragtaan dadka ay dilayaan dadka inay jamaaca u dilayaan qof ma baahay jamaaca inay u dilayaan bariga hore rasuulka saxaabadiisu ay joogeen waxay ahayd dadka si jamaaca wax loogu dilo ma oolin toorey falaar waran iyo dadka lagu dilay maanta waad aragteen qarax 100 qof 200 300 500 oo qof oo abriya ah waxay galabsadeen aan jirnaa la dilay hal subax markaas haddana wuxuu leeyahay Allahu akbar xaq inta istaag sidaas daraadeed ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed maanta waxay u wada istaageen inay cadawga iska qabtaan dagaalku xeeladaysi uu leeyahay si loo galo uu leeyahay awoodaadu hadba intay la eg tahay gaaristaadu intay la eg tahay jahadaadu sida ay kala yihiin culaysadoodu si u kala badan yihiin afar dawlad goboleed ayaa jamhuuriyadda Koomaaliya laba ka mid ah dagaal ka bilownay Soomaaliya oo dhan isugu tagtay meel fiican uu marayaa gabagaba ah labada kalena waa u soo soconnaa waana ka socdaaba oo hadda Jubbaland aan joognaay dagaalku waa ka socdaa waa jira dhul badana muxuu ahaa yaan marka khawaarijta yaa laga bixiyay oo laga riixay waana la sii daba jooga wiilasheenu ciridda iyo cadceedda iyo roobka iyo maxaan ku raadaay gabadanada intaba banaanka waxay ugu taagan yihiin waa in ummadda dadka qaadan markaas maxaa dhacay marka nimanku waa la dagaalamayaan markaan ciidan ahaan iyo dad ahaan iyo caqiida ahaan inaan uga adkaanayna markay xaqiiqsadeen farsamooyin kale la yimaadeen farsamooyinkaas kale waa maxay dadka inay khaldaan sida awalba u khaldeen caqiidada ay ugu khaldeen inay haddana u khaldaan waxaan rabnaa marka maanta ma hadda Ilaahay ka gaarto dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid way fahmeen waana arkeen shacabkiya kacay miyiga laga kacay nimankiya la yirana dhaafa meeshaad ka timideen aada ilaa shabaab ma aha maxalli ma aha ra'yigooda ra'yi oo Soomaali ku kooban ma aha alqaacida ka yimaadeen ra'yi caalami ay wataan Ethiopia inay qarabaan Kenya qarabaan Djibouti qarabaan ka sii gudbaan Uganda Afrika laayaan ka sii gudbaan caalamka Yurub iyo America iyo meel walba wadamada kale oo muslimiinta khaliijka tagaan meel walba inay qarabaan ay rabaan cid kastoo aan caqiidadaas muxuu ahay khawaarijta la tilmaamay aanan aaminsanayn waa cadawgooda iyo maxaan ku raay inta ay rabaan in ku caan marka sidaas daraadeed ku ajnabiga ah ku dhex jira ka hadlimayno wax naga dhaxeeya haba yaraatee ma jirto حتى هذه أي شيء المسلمين دول يدلل كلا لهذا ما أنت ما جوجنو
إن محن كل هذا عهد جيويناي أو مسلمين تدم هل دولة إيهوس جوجر مجول كلا دولة على نقطة ما ننتهي الله نجارشي عن دولة لكن مسلمين تصومالي ده أيا إسكال دالكان وحكسو هارب وأجنبي أجنبي قصيدة أول رقم يناهي وان كوان لنا دالكنا سود دقين فيسا لقى مربو هانتي ويالا كران وانا نوريهين دالك ومال قشا كران حقوق الصومالية معاملة قفك الصومالية وليه أي يالا كران أيقو أجنبي كوان لنا شروع دانا يجوج كران دالك كوان لنا دالكين ما كرام ما بسوق الكرام معاملة الدنيا اللي راكاسي واسيداس أن محوها أوضة دغم حيرده هذا مركب جهوريرك ومد إني جهوريريان قبائل كين اسكو ديران maamulka iyo dawladnimada inay been ka sheegaan markaas marka maxaa dhacaya dad badan oo dadkeena oo aan shabaab ahayn oo aqeedada shabaab iyo khawaarij iyo waxay aaminsan yihiin aan la aaminsaneyn ayaa laakiin u adeegaya oo daqaadis iyo jiidis waa isla gurugeyn wixii shabaab uu rabay dawladdu inay daciifto haday mid maamul goboleed tahay iyo haday mid federaal tahay inay daciifto in buu ku furmo inay ka mashquulsho shabaabka ay ku jeesato muxuu ahay hawlo kale ay u jeesato iyo maxaan ku iraadahay yaan haysta arkan naga fujiig ay ku mashquulsho waxa ay rabaan waay marka qof kastaahi oo maamulka waa run maamulkeena dawladnimada ducfi waa qaba wax waa ka maqan yihiin wax waa ka dhiman yihiin wixii aan rabnay ma hayno awoodii dawladnimo u baahneen ee dhaqaalihii dawladdu waajibaadkii dawladdu lagu lahaay inay 100% ma awood waa run laakiin taas cudurdaar fiican uma aha inaan shabaab fursad siino markaan isku mashquulno oo dawlad goboleed iyo dawlad dhexe iskugu mashquulno oo dawlad dhexe xukuumad iyo baarlamaan aan isugu mashquulno oo ciidanka amniga ee dadka la iska hor keeno oo dawlad goboleedka sidoo kale lagu buuqo sidoo kale baarlamaankeeda iyo xukuumadeeda iyo goboladeeda iyo wixii buuq laga dhax abuuraahay dadka Soomaaliyeed oo ogaada arintaasi waa hadaf shabaab waay shabaaba hadaf u leh waa la kala ra'yi duwanaa kara tabasho waa jiri kartaa si aan isugu sheegnay leedahay meel la isugu sheegay leedahay nidaam dawladeedan dhisoo hayna tabashooyinka jiro hay'adaha dawladda dhexdooda in lagu sheego waay mas'uuliyiintu inay hay'adaha dawladda dhexdooda ku xalliyaan waay laakiin haddaan midna xagga istaago oo mid shir ku qabsado hotel hebel oo mid idaacadda soo istaago ka qayle oo mid dal daris jiiraanan u duula xaggaas aan ku shiraynaa waaba ka baxna dalkii la yiraahdo walaalayaal waxaasi nama saacidayaan mana xalinayaan xal hadaad ka jirinaysana xal kuma jiro ma jiro aan isla hadalno institutionska dawladnimada dhexdeeda aan isla hadalno baarlamaanaan leenahay xukuumadaan leenahay oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed bale mid kastana ninka qaylinayo nimaad soo dirsatay oo wakiilka ahood soo doortaa ku jooga reer hebel data mid reer hebel aha jooga جماعة هبل iyo koox kale hadaa tahay mid kooxdaas aha ku jira baarlamaan haday tahay iyo xukuumad haday tahay waa dhax fadhiya midka aad shalay ilaa kan hal doorto xildhibaan hal laga dhigo ilaa ma wasiirna la siiyo wasiirkan aad la hayday ayaa jooga maxaa ku barbar marinayo waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay intibaahan ay kor u kacaan ay arkaan waxaasi هدفك ugu dambeeyahay inaan isku mashquulno oo aan shabaab ka mashquulno bay dhalay wax xal keenin mayso waxa tabanaysa kuma xalismayaan idaacadda inaad ka qaylisahay xal kuma imaanayo dalkan ka baxay dibaddan ku soo shiraya inaad tira xal kuma imaanayo wax inaad qabto oo tabasho aad qabi kartahay waa xaq lagu madidana bas sidee loo xalinaya sidee loo muxuu ah wajahaya taas uu waay walaalayaal aan u wajahno si dhiiranaan leh kalsooni leh oo aad isku kalsoontahay waa laga qancina ama waa lagu qancina labada bay mid noqonaysaa laakiin yaana waxayn inta kadib dagaalkaas iyo dib u xireynta dalka waa socotaa halkan waa soo socotaa way imaanaysaa ilaahay idinkiis meelna waa la saarayaa nimankaasi mustaqbalka dhow inaan ka adagnahay ka xoog badannahay ka xoolo badannahay ka diin badannahay kulli waa muujinay waan dadka Soomaaliyeed waa ku qanceen ilaahay idinkiis dadka reer Jubbaland dagaalka hadda ay ku jiraan ha xoojiyeen ha wadeen midka weyn anaga u imaadeen ha u diyaar garoobeen nimanka aan dadka iyo dalka iyo diinta aan ka xoreyno waa dhaaranay dalka iyo dadka iyo diinta iyo dawladda aan ku dhaaranay cadawa haysto
cadowga aan ka qaadno ilaahay idankiis si aan uga qaadnana waxyaabaha yar yarka aan ilowno